السلام عليكم داود maxaad og tahay xariga loo geysto Sumaya Qurux waxaan soo sheegayaa Sumaya Qurux labada maalin u dambeysay inay ku xiran tahay xabsi ku yaal magaalada Hargeysa ilaa hadda lama oga sababta loo xiray Sumaya Qurux Bilaal Bulshaawi ayaa daqiiqado ka hor wuxuu soo dhigay video bartiisa TikTok oo ku sheegayo in Sumaya labada maalin u dambeysay ay xiran tahay maantana la filayo in la soo daayo balse ilaa hadda la soo daayo wali xabsiga ku jirto aantan ayaa waxa soo badanaysa xariga loo geysanayo dhalinyarada markii aadan Somaliland dhalinyaradaas oo kusoo jeeda dhinaca waqooyiga muuqaal uu soo dhigay wariye Cali Muumin ayaa wuxuu ku sheegay in Sumaya Qurux loo geystay jirdil ee hadda ku xanuunsanayso xabsiga ku yaal magaalada Hargeysa daawad waxaan ka codsanayaa muuqaalka la geeso shisha gareeso u gaar dad badan ee Sumaya Qurux ku hesho freedom ila daawo muuqaalka Bilaal Bulshaawi oo daqiiqad hor soo dhigay bartiisa TikTok isaga uu ka dalbanayo Somaliland inay soo daayaan walaashii Sumaya Qurux maxaad ka og tahay xariga lagula kacay walaasheen Sumaya Qurux oo ku xiran muddo 2 maalin ah xabsiga Hargeysa Sumaya Qurux ayaa muddo 2 maalin ah ku xiran Hargeysa iyadoo la filayo in maanta la soo daayo wali war iyo waca lagama haayo iyo sababaha loo xiray insha Allah wixii faahfaahin halkan ayaa idinku soo gudbin doona insha Allah haddii Alla idmo ha loo soo duceeyo ilaahayna ha ka soo fujiyo reer Somaliland waxaan ka codsanaynaa si walbo ee u soo fududeyn karaan xarigaas ee lagula kacay walaasheen Sumaya Qurux in la soo daayo dhanka kale daawade aantan ayaa aad waxa u soo badanaya xariga loo geysanayo dhalinyarada reer koonfureed oo caanka barta TikTok kuwaas oo ku sugan magaalada Hargeysa 2 maalin ka hor ayay ahayd markii miswal laga soo tarxiilay Hargeysa kadibna dib loogu soo celiyay Muqdisho waxaana lagu haystay hadal ay ka sheegtay bartii TikTok ayadoo live ula jirto gabadha lagu magacaabo Habi halkaan daawanaysiin waa beeshkeen lamaana barank waxaan ka codsanaynaa in muuqaalka la jireeso shisha gareeso soo u gaar dad badan ee ku hayso Sumaya Qurux xorriyadeeda